مدن وزير مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية رئيس الوزراء حكومة قسمها هنا قدومية كحجين كلابات قدومية محكمة السرية رئيس الوزراء كحجين حبنا قلياشة قدومية قبل كبنادر معمول كيسة سفارتها ciidamada fanaaniinta miidiyaha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kadib markii uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya magacaabay guddiga qabanqaabada munaasabadaha xuska 26 juun iyo 1 luulyo laga soo bilaabo heer qaran iyo heer gobol munaasabadii hore ee u soo dhacday 26 juun oo aad wada ogeydeen inteenaan joogta iyo inta maqan ee daafaha adduunyada ka daawanaysay la socotay ugu horreyn waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo mudane madaxweyne hortaada dhammaan saxaafadda ka qayb qaadanaysay tebinta gaarsiinta iyo u gudbinta ummadda soomaaliyeed meel kastooy joogaan gaar ahaan haddeer oo telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo universal t v ay toos hawada ugu jiraan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa munaasabadahan oo ay si gaara fanaaniinta qaranka gobollada waaberi ay uga qaab qaateen doorkoodana ay ku soo aadiyeen ay ku muujiyeen inaan uga mahad celiyo mareeyaha guud agaasimaha gobollada waaberi iyo dhammaan fanaaniinta gobollada qaranka ee waaberi waxaan sidoo kale aan u mahad celinayaa bahweynta isboortiga oo tartan cayaaro oo munaasabadan 1 luulyo si gaara loogu talagalay maalmahan socotay oo galabta soo gabagabowday ayna ku soo gabagabowday labada koox ee kooxda banaadir sports club ee gobolka banaadir iyo kooxda horseed ee ciidanka xoogga dalka oo ay ku gacan sarreeyeen kooxda banaadir 3-0 waxaana gooldhaliyaha tartanka xorriyadda toddobaadka noqday cayaaryahan qays macalin cabdulle oo intii cayaarahaasi socdeen 4 gool isaga lahaa ayagana waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaana koobkaa lagu bixin doonaa munaasabad gaara iyo maamuus gaara madaxtooyada qaranka haddii allah awoodda la oggolaado waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ciidamadii xasilinta amniga caasimadda iyo xuska munaasabadahan sida mugga weyn leh uga qayb qaatay ayaga iyo talisyadooda iyo madaxdoodaba waxaan si gaara mudane madaxweyne aan ugu mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir iyo kan magaalada muqdisho oo hormuud u yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho aysan la'aantood suurto gelin munaasabadihii qaran ee soo dhacay 26 juun iyo kan haddeer aan taagannahay mudane madaxweyne waxaan cudurdaar ka bixinayaa waxaa jooga kooxo badan oo fanaaniinta dalka ah labada munaasabadood guddigani wuxuu si gaara u siiyey gobollada qaranka waaberi si gaara waxaan rabaa marka inaan uga cudur daaranno gobolladii iyo kooxihii ka kala soo jeeday dhammaan fanaaniintii qaranka ee dalka aan kaga cudur daaranno mudane madaxweyne waxaan kaloon ka cudur daaranaynaa fanaaniin badan oo qurbo joog ah oo nabadgelya iyo xasilinta iyo quruxda caasimadda u soo boholyoobay oo dalka ku sugan oo kala duwan ayagana rabay inay door muhiima ka qaataan gudbiyaanna wixii ay dalka u soo qaadeen tusaanna dadka ka maqan in ay uguna baaqaan in aan loo kala harin maanta soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay ayagana waxaan leenahay fursaduhu waa badan yihiin waana u sheegnay hortaada ayaana ugu bixinaya waxaan rabaa inaan si gaara fursaddan aniga aan si gaara ugu faa'iidaysto oo aan u mahad celiyo dhallinyarada heesta calanka gobollada waaberi mareeyaha guuda ereyada iska leh cabdidhuux yuusuf xasan aniga si gaaray ii taabataa
waxaana ku jira mar walba erayada shalay 13 dhalinyaraha lagu xusaa taariikhdeenaan soo barannay dadkaas ka dhidhiyey dagaalkii iyo wixii markii fooda la isdaray waxaa 100 nin door ah loo dilay in calankaas la helo xawtaaka loo dilay 100 nin door ah loo diray taariikhday ku soo xuseen dumar baa daraada dahabkoodii iibiyey dumarka dahabka iibiyey ma aha kuwa u xirnaa ilkaha kuwa ugu jiray siibeen haddii dadka Soomaaliyeed xorriyadooda ay wax u geynaysa xitaa ay u bixiyeen taariikhda lagu xusaayay haddana wax laga taabtay dhalinyarada markaa waxay ahaayeen da'yar bay ahaayeen daacad isu aaminay diiwaanka qarankay baal dahab ku leeyihiin maanta waxaan fursada mudane madaxweyne waan ku faraxsanahay inay dhalinyarada sida la sheegay iyo haweenka ay burburkiina ka qayb qaateen xornimadina ay ka qayb qaateen maanta waxaan ku faraxsanahay inay dhalinyarada Soomaaliyeed u taagan tahay dib u dhiska horumarka dalka mustaqbalka iyo aayahoodaba ugu horeeyo taas waxaa daliil ku ah waxaan rabaa fursadan inaan mudane madaxweyne hortaada ugu mahad celiyo ubaxa caasimadda oo ayaga isxilqaamay oo isxilqaantay socdaalka nabadda waxaa jiray bishii hadda Ramadaan ee la soo dhaafay dhalinyaro fara badan oo u taagneed afur ku gaar dadka Soomaaliyeed ee shaqaynaya oo la wada og yahay inay ayaga afur ay soo diyaariyeen ay siiyaan inta guryahooda iyo xaafadooda ay la tagayaan waxa ugu dambeeyay arxalnaawayaashii falkii argagixiso ee ay ku fuliyeen dhalinyaradeenna goobaha u gaarka ahaa ee ay ku xafladeynayeen isugu wacanayeen isugu imaanayeen waxa uu istaagay waxay ahayd dhalinyaro isxilqaan la baxday dhammaan ururadaas iyo dalladahaas waxaan leeyahay maantana ku ballansannahay inaan fursadaha jira oo dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo aad madaxweynaha ka tahay mudane madaxweyne iyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo madax ka yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre aad u bandhigteen oo aragtidaada ku salaysan in aan annagana u fulinno ugu adeegno ayagana ay haystaan kana faa'iideysan doonaan haddii allaha awoodda leh uu ogolaado annaga dhammaan xubnihii guddiga arrintan iga soo shaqeeyay heer gobol iyo heer qaran waxaan leeyahay dhammaantood waxaan ku soo wada gudbinaynaa inaan intaas ugu wada mahadcelino dadkii faraha badnaa ee ka qayb qaatay aan soo sheegay waana laga garan karaa inay munaasabadahani la mid ahayn munaasabadihii hore sidii 26 Juun aan halkan ugu sheegay mudane madaxweyne waxaan rabaa gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre annaga haddaan golaha wasiiradana horena waa ugu soo jiri jirnay laakiin annaga hadda waxaan nala siiyey course accelerated ama intensive course ka duwan waxqabadkii hore marka aragtidaadu ku fulinayay annagana waa ku fulinaynaa ilaahay hortiisna ummadda waa ugu shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan